kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada warka galka wararka qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah Soomaaliya oo si buuxda u taageertay dowladda Shiinaha kadib tallaabadii ay qaaday Nancy Pelosi. Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka oo shaaca ka qaaday maalinta codka kalsoonida loo qaadayo golaha wasiirada ee cusub. Xiisadii Puntland oo xal laga gaaray iyo danaya dib u soo magacaabaya gudoomiyaha maxkamadda sare. wararkii ugu dambeeyay ee doorashada dalka Kenya qodobadaas iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan ayaad ku dhageysan doontaan warka galka wararka. Fadlan daawada haddii aad nagu cusub tahay channelka subscribe noo saar noona sii share garee barnaamijka si uu u gaaro dad badan. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa si buuxda u taageertay siyaasadda halka China xilli xiisad xoogan ay ka dhex qaraxday Mareykanka iyo Shiinaha oo ku aadan jasiiradda Taiwan ee sheegata inay ka go'day Shiinaha. dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay ku celcelinaysaa taageerada xoogan ee ku aadan qarannimada, madaxbannaanida siyaasadeed iyo sharafta dhuleed iyo midnimada qaran ee Shiinaha. Waxaanu ku baaqaynaa in loo hoggaansamo qaraarka qaramada midoobay iyo midowga Afrika ayaa lagu yiri saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Waxay intaasi ku dartay in dowladda Soomaaliya ay shaaca ka qaadayso inay ku garab taagan tahay shacabka Shiinaha difaacidda iyo madaxbannaanida iyo waliba sharafta dhuleed ayna xoojinayso mowqifkeeda ku aadan hal China iyadoo u aragta Taiwan qayb ka mid ah dhulka Shiinaha oo aan muran ka taagnayn. Soomaaliya waxa ay xiriir soo jireen ay la leedahay Shiinaha kaasi oo ah iskaashi labada dal ee walaalaha ah oo ku qeexan siyaasadda, dhaqaalaha iyo waliba horumarka dhinacyada faa'iidada u wada leh, taas oo ay si dheer tahay ka wada shaqaynta mowqifyada gobolka iyo kuwa caalamiga ah ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya. Qoraalka dowladda Soomaaliya ayaa imaanaya iyadoo caro xoogan oo dhanka Beijing ay ka dhalatay booqashadii afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi Arbacadii ay ku tagtay Taiwan. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa cambaaraysay booqashadaasi kuna qeexday ficil xun oo daandaansi ah waxayna sheegtay in safarkeedu uu ka dhigan yahay faragelin toos ah oo lagu sameeyay arrimaha gudaha ee Shiinaha. Kasokow safarka Nancy Pelosi, Shiinaha iyo Soomaaliya ayaa wadaaga in laba gobol oo ka kala tirsan labada dal ay yeeshaan iskaashi. Taiwan oo ka tirsan Shiinaha iyo Somaliland oo ka mid ah Soomaaliya ayaa sanadkii tagay aasaastay xiriir diblomaasiyadeed iyadoo oo safaarado ka kala furtay Hargeysa iyo Taipei taasi oo ka careysiisay Muqdisho iyo Beijing. Guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa shaaciyay goorta codka kalsoonida loo qaadayo golaha wasiirada ee cusub ee uu dhowaan soo magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. qoraal ka soo baxay gudoomiyaha baarlamaanka ayaa lagu wargeliyay dhammaan xildhibaanada in biri oo Axad ah uu jiro kulan weynaha golaha shacabka kaas oo ka dhacaya Villa Hargeysa. xildhibaanada ayaa laga codsaday in ay soo xaadiraan kulanka oo muhiim u ah waxaana ajendaha uu yahay ansixinta golaha wasiirada ee magacaaban ee Soomaaliya. sidoo kale waxaa golaha shacabka Soomaaliya hortagi doona ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo marka hore xildhibaanada Soomaaliya weydiisan doona in ay meel mariyaan xukuumadda uu soo dhisay si uu u guto waajibaadkiisa shaqo ee loo igmaday. golaha wasiirada ee magacaaban ayaa maalmihii ugu dambeeyay waday kulamo xodxodasho ah oo ay xildhibaanada uga codsanayaan in ay meel mariyaan xukuumadda cusub taas oo durbaba la kulantay dhaleecayn iyada oo ay dhinacyo badan uga imaanayaan dhaleecayn kala duwan. wararka ayaa sheegaya in hadda ay tahay in la ansixin doono xukuumadda maadaama inta badan xildhibaanadu ay taageero u muujiyeen magacaabista golaha wasiirada ee cusub. xukuumadda la soo dhisay ayaa waxaa ka soo dhex muuqday Mukhtaar Roobow Abumansuur oo ku dhawaad 3 sano u xirnaa dowladdii hore taas oo dad badan la yaab ku noqotay. sidoo kale waxaa ka dhalatay hadalhayn xoogan oo ku aadan magacaabista Roobow ee loo dhiibay xilka wasaaradda diinta iyo awqaafta xukuumadda Soomaaliya. si kastaba ha ahaatee xukuumadda Xamse ayaa la rajaynayaa in berita ay hesho codka kalsoonida waxaana hor yaalla caqabado fara badan oo ay ugu horeyso wax ka qabashada amniga iyo abaaraha dalka ka jira. wararka naga soo gaaraya magaalada Garowe ayaa waxa ay sheegayaan in xal buuxa laga gaaray xiisadii u dhaxaysay madaxtooyada Puntland iyo baarlamaanka Puntland taas oo ka dhalatay magacaabista xubnaha maxkamadda sare.
kulamo kala duwan oo ay yeesheen labada dhinac ayaa ku soo dhammaaday is-afgarad waxaana heshiis lagu gaaray in xiisadii taagnayd laga gudbo lana xaqiijiyo in ay golaha baarlamaanku ansixiyaan. labada dhinac ayaa ku heshiiyey in madaxweyne Siciid Cabdulaahi Deni loo daayo magacaabista xilka gudoomiyaha maxkamadda sare waana markii saddexaad uu soo magacaabayo Axmed Traan sida ay shaaca ka qaadayaan ila wareedyo aad ugu dhow madaxtooyada Puntland. sidoo kale xildhibaanada ayaa lagu qanciyey inay kala qaybsadaan xubnaha kale ee maxkamadda sare si meesha looga saaro khilaafka madaxtooyada iyo baarlamaanka. wararka ayaa intaasi ku daraya in maalmaha soo socda la soo saari doono wareegto magacaabista xubnaha cusub ee maxkamadda sare iyadoo oo kadib la horgeyn doono xubnaha golaha wakiilada Puntland oo markaa la filayo in ay siiyaan codka kalsoonida. baarlamaanka ayaa horey 2 jeer u celiyey xubnaha maxkamadda sare ee uu soo magacaabay madaxweyne Siciid Cabdulaahi Deni taas oo xiisad ka dhex abuurtay labada xafiis. Siciid Cabdulaahi Deni ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku adkeysanayay inuu dhaqan geliyo wareegtadii uu soo saaray si ay u shaqeeyaan xubnaha uu soo magacaabay balse baarlamaanka ayaa ku gacan sayray arrintaasi walow haatan la ogolaaday in dib uu u soo magacaabo gudoomiye Axmed Traan. si kastaba ha ahaatee xiisadani ayaa si weyn u saameysay wada shaqaynta xukuumadda iyo baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland taas oo hoos u dhigtay shaqooyinkii hay'adaha dowladda. inkastoo haatan ay isfahan buuxa laga gaaray haddana waxaa laga dhursugayaa goorta uu dhaqan galo heshiiska ay labada dhinac gaareen. musharaxiinta ugu cadcad doorashada madaxweynaha dalka Kenya ayaa lagu wadaa in maanta oo Sabti ah ay galaan dadaalkoodii ugu dambeeyay ee ololaha doorashada iyada oo bilihii la soo dhaafay ay socdeen olole xamaasad iyo xoog badan oo loogu diyaar garoobayay doorashada 9 bisha Agoosto ka dhacaysa dalka Kenya. madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto iyo Raila Odinga oo ah hogaamiyihii mucaaradka ee rugcadaaga ahaa haatan taageero ka helaya xisbiga talada haya ayaa u halgamaya sidii ay u heli lahaayeen fursadaha ay ku hogaaminayaan quwadda bariga Afrika oo la daala dhacaysa dhibaato xoogan oo dhinaca nolosha ah. doorashooyinkii hore ayaa waxaa hareeyay rabshado waxaana weli jira mugdi. Kenya ayaa hadda waxaa codaynaya 22.1 milyan oo codbixiyaal ah oo hadda dooran doona madaxweynaha soo socda iyo sidoo kale senatarada, gudoomiyeyaasha gobolada, xildhibaanada, wakiilada haweenka iyo ilaa 1500 oo mas'uul oo ka tirsan maamul goboleedyada. hardanka musharaxiinta ayaa la isu adeegsaday sumcad xumayn, weeraro afka ah, eedeymo la xiriira dhinaca siyaasadda iyo wax isdabamarin iyadoo oo abaalmarino la siiyey taageerayaashooda kuwaasi oo ka mid ahaayeen dallado, raashin iyo lacag si ay uga qayb galaan isu soo baxyada. musharaxiinta ugu waaweyn ee doorashada ee bilihii la soo dhaafay socdaalka ku soo marayay dalka gudihiisa oo dhan ayaa waxaa ololahooda ugu dambeeyay. musharaxiinta ugu waaweyn ee dhinaca doorashada ayaa bilihii la soo dhaafay socdaal ku marayay dalka oo dhan waxaana ololahooda ugu dambeeyay ay ku qaban doonaan caasimadda. Ruto oo ah 55 sano jir ayaa magaalada Nairobi kaga qayb geli doona isu soo bixi ugu weynaa kaasi oo la filayo in taageerayaashiisa ugu badan ay ka soo qayb galaan. loolanka adag ee doorashada ayaa waxa uu sii huriyay wararka la isla dhexmaraya ee sheegaya in Kenya ay markii ugu horeysay ka dhici karto doorasho aan cidina ku guuleysan wareegga hore isla markaana lagu celin doono iyada oo dad badani ay ka walaacsan yihiin caqabad kasta oo natiijada doorashada ay u horseedi karto in rabshado ay ka dilaacaan gudaha dalkaasi Kenya. doorashadan ayaa bog cusub u furaysa taariikhda Kenya iyadoo aysan jirin musharax ka tirsan qabiilka ugu badan ee Kenya ee Kikuyada. daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa warkii aad kala socoteen janalka galka wararka. waxaad naga daalacan kartaan aaladaha YouTube-ka iyo waliba Facebook-ka idinkoo halkaasi si toos ah uga helaya akhbaaraadkii ugu dambeeyay ee dhinaca wararka. fadlan daawada haddaad nagu cusub tahay channelka subscribe noo saar sina share garee barnaamijka sida uu dad badan u gaaro. waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.